nabigeena sheegay calayhi salaatu wasalaam oo yidhi habeenkii jannada aan galay qasri baale jannada ku yaalla ayaan galay buu nebigu yidhi gabadh xural cayn oo qasriga dhex joogta ayaan ku idhi qasriga intan leeg ayaa ilaahay ugu talagalay markaabay igu tiri nin carab ka dhashaa loogu talagalay markaasaan ku yidhi aniguba nin carabiyaan ahay macidaan aniga ahaynba nin jilibka quraysheed ka dhashaa loogu talagalay anigaa qurayshiya macid kalaa nin ummadda nebi maxamedaa loogu talagalay anigaa muxamede macid kalaa cumar ibnu khadaab baa loogu talagalay iyay tidhi gabadhii markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo cumar la kaftamaya ayuu yidhi cumarow waan sii eegi lahaaye laakiin nin khiiro badan oo hinaaso badan inaad tahay baan ogaa buu nebigu ku yidhi isagoo la kaftamaya qasrigiisii baa jannada laga soo arkay cumar sidaa qasrigiisii jannada lagu soo arkay baa odhan jiray markuu khudbadda jeedinayo haddii la yidhaahdo bini aadanka dhammaan jannaday wada galayaan nin keliya naar ka galaya ninkaasi aniga inay tahaan u malayn buu cumar odhan jiray allaha raalli ka noqdee idan acmaasha aan qabanayno jannaan ku helaynaa janno